السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني سلامي دمان ومديدا ميل كستا جوجتان أي هوب دمانتينا لدنتين عافماد قبطان نمعي سنتين كستا حلي كستا إي ساعات كستا يدينتين الله سبحانه وتعالى يدكو حفتيو welcome back سو دوادا ويناقي يسكسو نقونا إي another فيديو مع عافماد قبطان من نمعي سنتين إلهي محان كرجينيا ميل كستا جوجتان إلهي يدكو حفتيو وقلب خميس أي نو تعاود جمع سو قليو جمع وناكسن ميلا جوجتان بإلهي محان كرجينيا إنا جمع كو خيرتان إنا عافماد قبطان إنا نمعي سنتين إلهي مان خير قبطو بركيسنا إنو نوغنيكو إن شاء الله بسم الله الكريم دما ولا الله قدان لك كسو بيرو ويلكم كسو دوادا ميل يدك جعليه ولا الله هيجي هوري ويلكم باك جزاك الله خدمان إن شاء الله بسم الله الكريم فيديو كان قبل ولا شيء أي كومنتي كان لبا جير يسو قرتي مر walba waxaan rabaa inaan tii hore ka soo jawaabo laakiin commentiga baan hore u waayay alxamdulillah videogayga uga dambeeyay hadana maxaanto igu soo qortay ma sha Allah walaashay waxay soo weydiisay commentiga ayaan idin akhriyay waxay ma sha Allah salaantayda kadib salaan aad sharaf badan ay soo dirtay ka bacdi ani mar hore ayaan topic ku diray dadka xanta badan seel isaga reeba hadaa runta u sheegto oo tiraahdo nagada dadka xanaaqayo oo khalad ka fahmaya ma sha Allah waa topic fiican maadaama aynu dumarnahay inkastoo hadda ragin xataa inagu yeero darsameen barmaleyni hadaynu dumarnahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna hadeeyo xanta iyo dambigu waa inagu badan yahay waana runteed walaashay dad badan baa jiro oo xan badan oo dambi badan oo habeenay maan raba inay wax ku keenaan dambi ku gelinaya inta badan waxa laga yaabaa sida abaayo inaad ka xishootid laakiin runtii bini'aadmi baynu nahay wax weyn xamaq ma jeclaanaysid hadaadan ahayn adigu qof xan badan oo dambi badan ma jeclaanaysid qof mar walba dambi ku keeno qof xan ku keeno hadana especially qofkan adiga dadka kula xamanayo ugu adigana inuu ku xamanayo qofka gabar kale oo walaashaya family kale nin kale dad kale ka hadlayo oo xamanayo waxa hubaal oo aan shaki ku jirin qofka adiga dadka kale kula xamanaya inuu adigana ku xamanayo oo qof kasta oo uu arko uu sheegayo haduu maanta adiga dadka kula xanto dadka kalena uu la xamanaya waxa jirta marka bini'aadmi baynu nahay waynu kala ixtiraam badan nahay waynu kala sabir badan nahay waynu kala dulqaadkeena kala badan waxa laga yaabaa qofkaas isagoo hadalka uu ku soo sheegayo ay ku dhibayso inaad u dulqaadatid inaad ka xishooto tiraadid qofka hadmaad u ku nacaa qofkaas hadmuu ku yiraahdaa ida laakiin runtii qofkan walaalayaal qofka kan xanta ku keenaya waxaan dambi iyo inkaar ahayn ku mukeen number 1 qof kale oo binaadmi oo walaalkaya ayuu xantiisa iyo dambigiisa ku keenaya qofka kale ma oga waxa laga yaabaa in u badantay inta badan waxa uu ku keenay inay ku tiri ku teen tahay inuu qof kale waru ka soo qaaday inuu wax la iska sheegayo been ay tahay ka waran xanta qofkaas uu ku keenay inaguna waynu soo gudbinaa inaguna qof kale inuu sheegna moogtay faadmo waxa loo yidhi saas waxa laga yaabaa faadmadii aynu dambiga ka sheegnay waxaas waxa laga yaabaa inay beenta even xataa haday runtahay hadaynu hadan muslima inaynu isu ceeb qarino weeyaan inaynu ceebaheena dhulka la wareegno ma qofka xanta keenaya ama qofka la xamanayna badan bini'aadmigu intooda badan waxa fiican ma sheegaan waxa xun baa la sheegaa qofka kale oo xanta ku keenayo wuxuu ku keenayaa waxan waa dambi waa qof kale intiisa iyo dhibaatadiisa soo isweydiin waxa miyaynu rabnaa adigu qofkaas anigaygaas ma jecel maantayna xumaantayda waxyaabahan ku khaldanahay suuqa la wareego oo magaalada dhan la ogaado soo qofkan xanta leynooga keenayana waa sida inagu markaa dhibaatada ina haysata hadaynu dumarnahay wixii leynoo sheego waynu sii qaadnaa hadalkii xuma oo qofka laga keenayna waxa laga yaabaa inuu hal mar magaalada dhan wada gaaro ama dhulka dhan gaaro qofkaas ceeb baa imanaysa sumcad xumo marka qofka xanta badan sidee baynu isaga ilaalinaa aanu kaagana xanaaqin runtii qofkaas oo kale waxa fiican inaynu runta u sheegno oo nirana fadlan walaalay qofkaas mar iyo laba hadaad u sheegto ku tira abay idoo waneen ma doonayeen inaan qofka walaalkiisa dambigiisa kale walaalay inaga daa dambigeeda ilaahba inaga og oo sina saxiixa xataa tira walaalay inaga daa dambiga ma doonayo qofka inaan ogaad oo dartii qofka inuu kugu soo noqonayo kale ama the same qof kale wax kaaga sheegayo number 1 waxaad ogtahay inuu adigana wax ka sheegayo 2 waxaad ogtahay dambiga qofkaas uu ku keen inaad kula jirtid marka qofkaas haduu inaga xumaado iyo hadii kale isaga u taala hadii aad marka hore ixtiraamtay si sharaf leh aad u tir walaal naga daa dambiga naga daa ku deen waayo waxa muhiim ah inaad warcad sheegtid inta badan xishoodka iyo duqaadka iyo inagoo islooreena waxay inagu ridaa meelo badan waxay inagu ridaa inaynu dambi dhigaysano waxay inagu dhigtaa qofkaas inuu mar walba inagu soo noqdo waxa jira dad hadii aad wax u sheegto ku tir xataa hadalka ma doonayo iga daa haykeen kugu soo celinay aniga qofkaas oo kale waxaan sameyn lahaa markaan arko inaan dhowr jeer ku walaaliga daama dooniyo aan arko qofkii inuu kula yimaado runta u sheeg waxa tirada listen hebenow ama heblaayay walaal aniga ma jecel waxaan aad ii keentay waana kuu sheegay mar hore dad walaalaabaynu inaan iska horimin ma doonayo qofka xumaantiisa ama
haddii uu ku keeno marka dambe topic u bedel wixii uu ka hadlayay bedel ama ku jooji halkaa ku jooji waxa tirada iga daano ma doonay mana dhageysto qofkaasi inta sida ay u badan tahay uu ka go'aya sababtoo qofkaasi war buu raadinaya ama dambi iyo xan buu wada haddii aad ka dhageysan weydid qofka loo raadsanaya because isagu qofkaas wax ka dhageysta buu rabaa marka bini'aadmiga hadaynu nahay waa inaynu qofka runta u sheegno waxaa jirta beri gabadhaan isla shaqayn jirnay weliba gabadha waan jeclaa gabadha Soomaaliyeed laakiin gabadha Muslim ahayd gabadhaan jeclahay bayd oo fiican laakiin gabadhaas ilaa maalintan shaqada bilaabay waxay iga sheekayn jirtay ninkeedii ay kala tageen caruurta u dhashay xumaantiisa marka beriga hore waxaan jiraa baa isaga samir ilmaad u leedahay laakiin berigii dambe waxay noqotay inaan karaahiyeystay inaan nacay ninkii islaameed dambiga iga sheegaysay oo mar allaale gabadha marka allaale ninkii soo hadal qaato qalbigu xanuuni jiray markii dambe waxaan ku walaalo iga daa I don't want inaan dhageysto waxa kan ninka kan adna wad ku dambaabaysaa bilaay anigana dambigiisa dhigihii baad qashin igaga gurtay iga daa marka gabadhii muddo markay ugu soo xilso maalmo bay ka markii dambe way nacday way hadhay sababtoo kama dhageysanayn oo fiir qofka kale marka maalmo dambi xalay nooga sheego qofkii kale xataa marka labada indhood ka qaatay waxaad uga xasuusanaysaa hadaladii lagaaga sheegay waxaa jirta aniga dad hadallo leega sheegi jiro oo berigii hore markaan laba indhood ka qaado waxaan xasuusan jiray hadalkii qofkaas yiri oo laga sheegay sababtoo wixii ayaa dhagaheena ku jira wixii ayaad xasuusan waxaa laga yaabaa qofka miskiinka waxa laga sheegay inay been tahay waxaa laga yaabaa inaanu ogeyn inaad ogtahay marka qofka dambiga inoo keenaya haddii aadan ahayn adigu qof dambi jecel haddii aadan ahayn adigu qof xan ay ku dhibaysona taas waxay tusaysaa walaalo inay dhibsanayso gabadhaas dambiga ay u keento marka walaashay macaanay iyo dhammaanteenba qofka dambi inoo keena qofka war inoo keena qof waxayna raalli ka ahayn inoo sheega inoo keena waa inaynu runta u sheegno haddii aad marka hore aynu ka xishoono qof waalida qof weyn qof darisa qof aynu xaq dhowrano uyahay aad dhowr jeer u sheegto ku tirada walaal naga daa dambigeeda walaal inaga daa ma dooniyo walaal ilaahay subxaana watacaala ka kor qaado walaal inaga daa yeelkadeeda oo qofkii aad aragtid inuu hadalkii kugu soo wado si cad ula fadhiiso waxaad tiraa walaal aniga hadalka dhowr jeerna waa dhitir ma dooniyo inaan ogaado gabadha islaamid ma dooniyo dadka aad ii sheegaysa dambigeeda iga daa hadday kaa deen weydona faraha ka qaado qofkaas waxaa tirada sheekadii markuu kuu soo geeyo u bedel sababtoo ah ilaahay subxaana watacaala qofkaas inagu nafteen ayaynu mas-uul ka nahay qofkaa kale mas-uul kama nin laakiin waxaynu kaloo mas-uul ka nahay waxa dhagaheena ku dhacaya waxaynu dhegeysanayno haddii ay wixii qofkaa kale uu kuu sheega ay ku dhibayso waxa muhiima inaynu joojino oo qofkii ama taabigii aynu u bedelno ama aynu ka dayno waxaana kuu hubaa gabadhaas maalinta aad ku tirahdid iga daa dambiga ood ka dhageysan weydo oo markay kula soo hadal qaado aad ignore garaysid ood iska dhigtid waxaan maqlayn oo ku tirada walaal anigu waan kuu sheegay gada gabadhaas inay ka hadhayso waxay raatanaysaa qof kale oo warka u sheeg waxaa jirta gabadhaan isla shaqayno haddana aanu very good friend nahay gabadhaas maar walba waxay iga caban jirtay habreerteed waxay tiri habreertay intay isoo wacdo bay kaasinkayga kale oo dhan ila xamataa oo aniga waxay tiri amar igu dejisaa sidaanaato oo ninkayga wax ka sheegta oo waxay tiri mar allaale habreer waxay tiri heer waxaan gaaray markay isoo wacdo hooyadad walaasheed markay isoo wacdo waxay mar aniga iyo sabxad waxa u samaystay maxaa sidan u yeeshay muxuu nigu sidan u yeeli waay moodada Soomaalida kaliya inay wax xamato inaga dad baa jira gaal iyo islaam wuxuu yahay wax sheega xan ay dambi badan ka habreer waa karaahaysa sababtoo tahay markay aniga isoo wacdo mar aniga iyo saysa mar aniga ilaahay maxaa waxa u sameeyay maxaa heblaaya ka fiican waxaan samaysay cunugaaga maxaa sidan ugu gali weeday ninku wadaagyada ilma abtiyada waxba ila xamanaysa marka waxay ugu beriga iga sheekan jirtay marka wuxuu nijtay walaalay wadniye bay cadas next time ka dambe ay ku soo wacdo marka aad teleefanka ka qabatid sheekada kugu bilowd waxa ku tirada lisan habreer aniga ma doonayo waxa inaad iga sheekaysid wax kale sheeko kale u kale waxaad mar allaale waxaan ku markay taabiga adiga ku soo hadal qaato iyo dadka kale ay xamanayso gabdhaha habreerta oo tay dooyinka sidan ay sameeyay kii wuxuu sameeyay muddo daalooda waxaan ku shadka ka sii ku sameeyay tirada lisan habreer ma doonayo waxa inaan ogaado fadlan ha iga sheekeen yoro Sunday walba noo soo wacda every Sunday kaniisada markay ka timaado bay wixii maanta kaniisada ay ku soo aragtay iyo habreer wadaagadeedii family waxay tiri markaas aniga ay saxad kaniisada waxay tiri maalmihii dambe waxay tiri waan ka qaba way ima deelayso mar allaale marka qabtaan ku habreer I don't want in waxa ogaado dadkan aad iga sheekanaysa dambigooda ma rabo ha ii sheegin negative ka ma rabo waxay tiri na way igu soo xilisaa waxay tiri Sunday dambe soo wacda way laba week hor waxay ku lahayd naadiyi ma ogtahay habreertay inay deysay intii markay soo wacday jira waan ogahay inaad rabin inaad dhageysatid sidee la waxay tii shad bini'aadmiga oo dhan bay tir way iga deysay hadda dhowr bilood bay u qaadatay inaan mar walba mar allaale markay taqada ii bilowdaan aan ku dhahay habreer waa ku sheegaan ugu waxa kama hadlaye maxaafsa maanta xaaladaada ka waran adeer sidoo ahaa family waxay wax kale ka wareysta shaqadii ka waran waxay markaas igu soo celisaa markaas aan ka bowda way ii deysay xantii dambiga ha wadiga nacday wadiga si cararaysa habreer aniga ma doonayo dambiga marka bini'aadmiga qofka dambiga badani adiga haduu ku waayno qofka lu raadsanaya
sababtoo adiga haddaan markaa family iyo jacayl iyo walaaltinimo kale aan idinka dhaxayn qof kale oo dembigii la qasta buu doonaya marka walaashay macaanay iyo dhammaanteenba waxaan odhanaha qofka ku dhibaya qofka dembiga kuu keenaya qofka xanta kuu keenaya haddii aadan rabin si sharaf leh u wanaagsan ugu sheeg waxaa tirada walaali adigana dembi bay kugu tahay dembi weeye waxa qofka bini'aadmiga nagada qofka kale ceebtiisa u qora ha sheegin ma ku diiday qofkii maalin walba ma kugu soo noqnoqonaya dembi ma kuu keenaya waxaadan rabin ma kuu keenaya dhegihii ma kaa wasakheeyey qof bini'aadmi aadan ogeyn dembigiisi ma kuu sheego halka markuu marayaad ogaa adu wixii laga sheegay maqlaysid marka u goy qofka si yar bini'aadmigu waxay wuxuu sheegaan qofkay rabaan inuu wax ka dhigaysanayo ogyo inuu wax ka dhigaysanayo waxay wax ka doontaan qofkay ogyihiin inay wax ka helayaan waxay dhibaan qofkay ogyihiin inay dhibi karayaan waxay ku dul socdaan dadka ay ogyihiin inay ku dul socon karayaan waxay caayaan dadka ay ogyihiin inay caayi karayaan ama aanu jawaabayn ama kala jecleen soo fadlan haddii aad aragtid qofka caynkaasa way inaga buuxaan weliba dumar baynu nahay dembigeenu waa badan yahay ilaa laakiin qof kale ka hadlaya qof gabadh kale oo walaashaya qof bini'aadmiya ilmo family ka hadlaya waxaad ogaataa adigana inaanu ku daynin adigana qofka kale uu adiga markuu kaa tago qofka kale ayuu adigana kaaga sheekaynaya soo adigu waadaan is ogeyn isma ogin laakiin qof kale ayuu kaaga sheekaynaya soo waxaa muhiima inuu qofku hadal cad leeyahay xishoodka sharafta dulqaadka waxaasoo dhan waa wax fiican laakiin haddii aadan qofka wax benefita ka helayn haddii qofkaas wax dembiya uu ku keenayo aakhiradaada u shaqayso iyo qofka xumaantiisa inaad ogaatid qof walaalkaya aadan ogeyn inay waxaas jiraan marka walaashay macaan iyo naftayda iyo dhammaanteenba waxaa leeyahay gabadha dembiga kuu keenta ku aamusi si sharaf loogu sheego u nasteexay makaa diiday nasteexadii ma kugu soo noqnoqoto ku aamusi iyadaa iska tegi doonta marka insha allah bidmillaahi kana ilaahay subxaana watacaala ha ina xifdiyo ilaahay subxaana watacaala ha ina dembiyadeen ha cafiyo aad ayaa dembiyadii iyo xantii iyo dumarkii inay war la wareegaan gaal iyo islaam soomaali kaliya maaha dumarka adduunka ilaah waxay naarta dumarka aynu ugu badannahay waa dembiyada aynu la wareegayno ilaahu subxaana watacaala aynoo naxasa gaal iyo islaamba waa isku mid haddaad aragtid afrikaanka kale suudaanta etoobiyaanka west afrikaanka war waa inagoo soomaalida kale saasay isu xamalayaan saasay dembi ugu sheegayaan qof kale saa ugu sheegayaan gaaladii cadaankii madoogiba xataa waa xamanayaan marka dumar meel kasta u dhasheen carab iyo islaam iyo gaal iyo islaam waa isku mid waa lagu kala yarayahay maahane dembiga iyo xanta iyo xasarada dad baa isaga dhashay marka insha allah bidmillahi karin wixii ku dhibaya wixii dembi kaaga imanaya adigana waad kula jirtaa marka insha allah bidmillahi karin walaashay waa ta jawaabteeda insha allah adigana waxay fikrad ka qabtaan iyo waxay idinla tahay commentiga noogu reeba insha allah bidmillahi karin intaynu video kale ku kulmayno khayr ayaa idin rajaynaya jimco wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu